بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta iga mudan oo meel kastoo ka joogtaan daafaha iyo daclada adduunka waxaan usoo galay arrin yar. waxaan doonayaa caawa insha allahu tacaala inaan u hambaleeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto anigoo ugu hambaliyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay. waxaan leeyahay maanta waa maalin weyne maanta madaxweyneheena maanta magacii haraage maanta saddexdii maqnaana maanta calanka u muuqde maanta waa maalin weyne maanta mandiq hasheeni maanta caanihii ka maalne maanta waa maalin weyne maanta maadhkii dhulkeena maanta lama qarin kare maanta. soomaalida waxaa la isweydiiyaa sababta ay ugu magacaabeen hasha maandeeq. mar la isweydiinaya waxaa yihi soomaalidu wixii ugu weynaa ay lahaayeen wuxuu ahaa xilliga ay haysteen ama madfacu ahaa ama kaara u ahaa waxay ahayd geela. sidaa awgeed soomaali weyn waxaa loogu magac daray maandeeq, yacni hal baa lagu matelay weynaanta. yacni soomaali weynnimada markay qaabay ku qiyaaseen ay garan waayeen bay ku qiyaaseen maxaan idhaahday hasha. waxaan doonayaa horta inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadii doortay madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi farmaajo. waxaa ii muuqata maanta rajo, waxaa ii muuqata yedidiilo. wallaahi bilahi anigoo qurbaha ku nool oo aanan ku fakerin dalkayga yacni inaan dib ugu laabto ayaan ku fakeray dalkayga inaan dib ugu laabto, askari ka noqdo, maxaan idhaahdaay waxaan dalkayga ku tari karaa aan ku taro. lianno adduunyada maanta waxaa lagu jiraa ismahaan waan ku salaamay, qalbigaa ku salaamay ismahaan cadey, prince najma, ayaanle ibrahim, brownharf dhammaantood salaamay. anigoo qurbaha joogaan weligay ku fakerin inaan dalkayga dib ugu laabto ayaa waxaan ku fakeray dalkayga inaan dib ugu laabto. waayo waxaa ii muuqatay rajo, waxaa ii muuqatay cadceed soo baxday iyo iftiin. adduunyada waxba laguma noqdo keli socodka, ruuxna keligii oo ka awan hadraawi lahaa. qofna kuma gala adduunyada gooni socodka, marwo garaasho dheer baa ninka raga u gudin oo garhayaha naftada walbacankaas oo kiilaha. waxa keliyata ee qof kasta uu baahan yahay noloshan wehel weeyaan. idan haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu aadam markuu abuuray ee uu jannada ka soo saaray ee uu maxaan idhahday xaawas ugu luufluufayn aragnay iyo inagoo aragna maanta adduunka taxaalufaadka ka jira, maxaan idhahday waxaasoo dhan markay ii muuqdeen soomaali weynimo wax ay nagu dhaantaa maanta ma jirto. lianno anigu haddan idinla hadlaya inu markaan burco joogay waxaan aaminsanaan jiray, dadka qaar baa odhanaya inac raali weligiiba waa aaminsanaa. waxa anugu burco markaan joogay somaliland baan aaminsanaa, wallahi been ma idiin sheegayo. laakiin qurbaha markaan arkay say gaaladu isu bahaysanayaan, markaan arkay adduunyada taxaalufaadka ka soconaya iyo waxa ka jira, waxa aan go-aansaday in aan dadkayga iyo dalkayga aan wax la qabo. anigan idinla hadlaya wallahi been ma idiin sheegayo. awowgay caraale waxaa dilay sayid maxamed cabdulla xasan. maanta haddaan idhahdo awowgay iyo 14 wiil oo dhalay, awowgay daahir caraale, awowgay daahir caraale maha, awowgay caraale cismaan iyo 14 wiil oo dhalay ayay daraawiisho dishay. haddaan maanta inta halkaa istaaga idhahda ka waran dadkayga waxaa laayay daarood oon waxaa ka sheekeeyo, yacni waxaas waxay noqonaysaa anigana cuqdad bay ii noqonaysaa, xanuun baan ka qaadaya waxaas haddii qalbigay kusii jirto. dadka kalena waxba u tari maayo aan haddii iminka ilmahaygaan ku beero cuqdadan idhahda awowga daahir caraale waxaa dilay ogaadeen iyo sayid maxamed cabdulla xasan iyo soomaali weyn baa dishay iyo 14 wiil oo dhalo ilma caraale waxaa dilay soomaali weyn oo ilmahaygaan cuqdad ku beero, anigana waxba ma taransanin. ilmahayga mustaqbal iskuuluu heli lahaa, horumar buu heli lahaa, caalamka wax la qaybsan lahaa, soomaalinimo wax ku qaybsan lahaa, wuxuu iska dhicin lahaa, khayrkiibu iska dhicin lahaa, ethoobiyan buu iska dhicin lahaa, kenyaatibu iska dhicin lahaa, horumar buu gaari lahaa. yacni inankayga dib baan u celiyey. waa kii lahaa hurro walanwal markuu u heesayay inantii cambaro, ruux yare mahana qaadee hablihiina hadhuu baa ku fororin hablihiina ciidad, ruux yare mahana qaadee. yacni maxaan uga jeedaa maansada waxaan uga saxay ruux han yare mahana qaado, yacni horumar ma gaadhaysid, khayrka ma gaadhaysid, wallaahi baanad khayrka gaadhin oo aad horumar gaadhin oo aanad adig iska dhaafi cid kale yacni aanad higsan karin, afrikada kale aanad higsan karin.
ilaa ma aad han yeelato waar maanta Ethiopia iyo Kenya oo ay naqaanay sidii ahaayeen ayaa maanta inoo soo hawaysanay dhulkeena wallahi been ma idin sheegay qisadii inoo lagu dhigay iskuulka la oran jiray saddexdii dibiga cadda maalintii la cunay baa la cunay wuri dibiga madoobay waxaan uga socdaa waxa soo dhan oo qisa xigmad ku dheehantay maanta hadii ka jeesano oo Soomaaliland xataa ay go'do yaani gibirka waligeed oo ka qaadaysa Ethiopia talabaad been baa la inoogu sheekaya wallahi billahi been baa la inoogu sheeday reer waqooyina waxa la inoogu sheekaya ma taqaana waxa la yiraahdaa dadkeena waa la laayay waa la gumaaday waa sidana loo galay wallahi waa been inaan mid ka jirin waxa meesha ka dhacday sheekada oo dhan aan idin fahansiinaya sheekada oo dhan waxay ahayd Siilaanyo iyo ragii maxaan idhaahdaa dawladda ku jiray waliba Siilaanyo oo madaxda u ahaa ee dawladda Soomaaliya ka tirsanaa ayaa waxa dhacday waxa dheen markay kursigana looga kaco Siyaad Barre ku dhahdeen markayga kursiga ayaan doonay inaan madaxweyne noqono Siyaad Barre nin dictator uu ahaa nin kaliya taliyaab uu ahaa waxaasi ma jiraan ayuu dhahay وعليكم السلام ولا لون كاقد معنا أحمد إسماعيل سياد بري nin dictator waa nin kaliya taliyaab uu ahaa wuxuu dhahay waxaasi ma jiraan iyagina waxa dheen maadaama sidaas aan dhacaynin oo Siilaanyo muxuu hore uga xanaaqay uu la shaqeeyay dhowr 70kii uu la shaqeynayay qabyaalada uu leeyahay dhowr 80kii bay soo baxday dhowr 10 sano uu la shaqeynayay maxay markii hore soo bixi weyday maxaa uu dadka masaakiinta ay umada ay ugu guureen iyo dadka masaakiinta Hargeysa iyo Burco magaalooyin siraadan oo shidan oo iskuulada la dhiganayo oo malcaamadaha la aadayo oo dadku lacag haystaan ayahay waalaikum asalaam waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatu ayay haayeen waxa soo dhan ka dambeeyay niman siyaasiyiin inay dadkeena iibsadaan inay been ugu sheekeeyaan inay yiraahdaan waa layna dhacay waa la iibsaday dalkeeni taatarka dhacay inay yiraahdaan waa la iibsaday dalkeeni dadkeena waa la iibsaday maxaan idhaahdaay aynu dagaalano ina kiciyay ina meeye reer hebelay meeye maxaa ka dhacday wixii oo dhan in magaalooyin camiran dhisan la duqeeyo madaafiic loo adeegsado maxaan idhaahdaay dalkii maxaan idhaahdaay la baabi'iyo la burburiyo inkastoo dawlad kasta in weylaada ma garanaysaa Siyaad Barre markii hore qabyaalad kuma dhaqmi jiray runta marka la sheego laakiin markii dambeeto uu arkay siday wax u socdaan laftirkiisu wuu tashaday yaani wuxuu go'aansaday inuu qabyaalad maxaan idhaahdaay dadka marka dadka kale ay ka yaacaan waxa dantu khasab ugu noqonaysa inta ku xigtay inaad magacaabato laakiin qabyaalada la sheegayo markii hore ba horta qabyaalad way yara jirtay kacaanka intii ka horeysay 79kii 77kii 76kii wixii ka horeeyay waxa dalku hadal fiican dal wanaagsan ba laakiin been ma idin sheegayo wallahi billahi tallahi deena Soomaalina dadka ina gatay waa siyaasiyiinta weeyaan Siilaanyo shalayna wayna gatay maantana wayna gadanaya wuxuu doonayay inuu been noogu sheekeeyo oo neeraado maskaxdayda kabihiisa inuu kula dhex socdaa buu doonaya laakiin ma dhacaysa taasi qof bini aadan oo anigoo kala intuu fikir oo isagu leeyahay la qimo inuu maskaxdayda lugihiisa waskhaysan ula dhex maro maxaan idhaahdaa nin han siyaasadeed doonaya maanta waxaan aaminsanahay wallahi been ma idin sheegay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa su'aal bal weydiisay oo Djibouti jooga waxa la dhahay ka war hadii Soomaaliya madaxweyne lagaaga dhigo cabaar buu yara aamusay han baa yara galay been ma idin sheegay Siilaanyo hadii maanta la dhahay madaxweynaha Soomaaliya aad noqonaysaa wuxuu oranayaa waa been waxaasi Soomaaliya waa mid walaalaynu nahay waxaas Ilaahay baan ka yiri ayuu oranayaa waan ogahay taa marka nin siyaasiya oo markii horena mansab iyo han yar kaxeeyay maantana han yar inuu kaxeeyo adiga oo lugihiisa kula dhex socda maskaxdaada wax dhici karta ma waxaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri wala tanaazacu hays qabqabsanina oo ha murmina oo isku dhex yaacina haddii taas dhacdo maxaa dhacaya fatafshalu wa tadhhab riihukum waxa idinku dhacay waa fashilmaysaan awoodiina iyo quwadiina inay tagaysaan ay bimaana tadhhab quwwatukum awoodiina ay tagaysa marka waxaan leeyahay anigu hadalka soo koobaya waxaan u dirayaa hambali aan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogan daafaca caalamka hal dardaarana baan caawinsiinay insha Allah ta'ala sheerna dhaha hal dardaarana baan dhammaan Soomaalida oo dhan siinay waliba gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka xorooba maskaxdiina ka xoreeya qabiilka iyo qabyaalada ka xoreeya anigu burcaan u dhashay yadaan ku dhashay yadaan ku dhimanaya yadaan laygu aasaya insha Allah ta'ala waligiiya Allahina wax Soomaali weyn ka yar ma aaminayo hankaygu haduu Soomaali weyn ka hooseeyo oo aan gobol aamino waxa weeyaan waxa noqonaya qof han yar baa noqonaya nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu asxaabtiisa ku yiri isagoo oo baraya hanka weyn iyo himilada sareysa wuxuu ku yiri إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى إلهي هذا وحويدستان جنة فردوس ويديستا فإنه أعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكتها الله جنة هلك أسر رئيسة وبيجدنا إذا كسود الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحق بريا حتى مرك الدعاء سنيسة إن هذا هنيالته إن هذا ملصق كهب يامن إن هذا أوران الدون باندونية سيدي محاكد علي نبى النبي صلى الله عليه وسلم أيمي adug arin baa looga baahday wuxuu dhahay deena aduun buu doortay nin Carabiya bareermiya maxaan ku siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri wuxuu yiri waxaad siisaa hal
aan fuulno iyo riyayar oo reerkayagu maalo waa xadiis saxiixa oo soo baadhi kartaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ajastum an takuna mithla ajuzi bani israa'iil warma waxa ka caajis noqoteen oo awoodi kari weydeen ina noqotaan sidii duqdi ama islaanti reer bani israa'iil saxaabadu way weydiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana ku yiraahdeen waa maxay ajuzi bani israa'iil maxay samaysay qisadeeda maxayd nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay wuxuu yiri waxa dhacday hadda ka hor nabi muuse ayaa reer bani israa'iil ba waxay damceen masar inay ka guuraan oo meel kale ay u hijroodaan dabeedna nabigu sallallahu alayhi wasallam waxay dhaheen ma guureyno ilaa nabi yuusuf qabrigiisa naloo soo saaro oo naloo qaado dabeedna nabi muuse sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay yaa garanay meesha uu ku jiro qabrigii nabi yuusuf alayhi salatu wasalam nabi yuusufna waa nabi israa'iil inankiisii weyn yacquub ayaa la oran jiray israa'iil magaca israa'iil kaasoo ka yimaaday dabeedna islaam baa loo tilmaamay da'weyn islaantii waxay dalbatay janno adduun may dalbanin bal ku fiirsa ilaahay baan ku dhari adduunyo may dalbanin iyo wax sokeeye waxay dalbatay janno nabigu saxaabadiisa isagoo baraya hanka sare iyo himilada sare meesha ay gaarsiisan tahay ayaa wuxuu dhahay war ma waxa noqon kari weydeen oo ay ka liidateen islaanta reer bani israa'iil sideedo kale inay noqotaan adiga maanta adigoo Soomaaliya oo aan isku luqad ku hadal oo aan sunni wadanahay dhamaanteen oo qof shiicay aanu nigu jirin oo la ilaaha illa allah muhammad rasuulullaahi leeyahay oo aan isku hawd faarbanahay isku midabnahay ayaa ma waxaad garan weyday hankaagu Soomaali weyn inuu ka hooseeyo hankaagu Soomaali weyn hadduu ka hooseeyo ugu qof han yar baatay qof aan horumar aan gaar karin baatay fariintaydan waxaan doonayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto in la gaarsiiyo waliba dhalinyarada nahay dalkan xoog kale ma laha SYL iyo SNL labadii urur ee xoreeyay dalkeena dhalinyaro ay ahaayeen nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ciidan u magacaabay oo amiir uga dhigay Usaama bin Zayd oo aan 17 jir gaadhin ayaa ciidan Abu Bakr iyo Umar ay ku jiraan oo hoggaan uga dhigay dhalinyaradu markasta waxa weeyaan waa hoggaanka iyo cududda maxaan idhaahdaa ummad kasta ummaddu hadaan dhalinyaradeeda aanay u kicin yaa kale ta u kacaya yaa kale u istaagaya anigu waxaan go'aansaday markii hore inaan siyaasadda galo inaan mabda Soomaali weyn qariyo oo aan iska daayo baan go'aansaday waxaan laakiin markii dambe aan ka fakiray aayahayga iyo mustaqbalka inankayga aan dhali doono waxa aan go'aansaday inaan ka fakirin ilmahayga wuxuu noqon doono inaan ka fakirin hankayga siyaasadda laakiin aan ka fakiro ilmahayga waxaan ka fakiraya sidii ilmahayga waxbarasho u heli lahaa sidii inanka Etoobiyaanka uga sarreeyna Etoobiyaanku soo mugi dad baabaha weeyaan haddana waxa la yaabaa dadka jaamacadda iyaga soo doonta waa Soomaalida iyagu waxay soo haystaan adduunka inay ugu hooseeyaan Soomaaliga jaamacadda soo doontana way la yaabaan waxa aan go'aansaday maalintaas wixii ka dambeeyay in aan ka fakaro mustaqbalka iyo meel fog in aanan himiladayda la dhiman in aanan fikirkayga la dhiman in aan dadka u soo gudbiyo in aan dhalinyarada kiciyo in aan dareensiyo in aanay Soomaaliya dhiman oo ay dhalinyaradu mar labaad isu taagi karaan waxa idinku jira wallahi been ma idin sheegay dhalinyaradiina maanta saxawli yaraysanaysa waxa idinku jira Usaama bin Zayd oo kale idinku jira oo Khalid bin Waliid oo kale idinku jira oo Talha bin Ubaydullah oo kale idinku jira dadkii u heliyay diintan ee nabiga sallallahu alayhi wasallam isgarab taagay ee maxay dhahdayay diintan kor u qaaday dhalinyaro ay ahaayeen war dhalinyaradu quraanku laba siiqo kula hadlay marna jamac buu kula hadlay dhalinyarada marna wuxuu kula hadlay dhakar fardi qura ayuu kula hadlay labada jeer mar wuxuu innahum fityatun aamanu bi rabbihim wazidnahum huda suratu kahf ama walba jimca kasta akhrido bal u fiirso quraanka maxaad ugu fiirsan laadahay innahum fityatun iyagu waxa weeyaan fitye iyo dhalinyaro aamanu bi rabbihim rabbigood rumay wazidnahum huda aan hanuuna u siyaadinay واصحاب الكهف الى سبحانه وتعالى كشكنيه marka siiqa ilaahay wuxuu kula hadlay subhanahu wa ta'ala jamacaha ayuu kula hadlay quraanku marka lana quraanku wuxuu kula hadlay fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suratu anbiya marna wuxuu kula hadlay mufrad kaliyahan buu kula hadlay halka waxa kaaga muuqata dhalinyaradu markasta inay muhiimad u leeyihiin diinta dalka danta iyo shacabka dhamaan markasta inay u leeyihiin faa'iido ay u leeyihiin badalka ka garanaysa waxaan idin sheegayaa maanta isqor Hargeysa jooga ka Muqdisho jooga ka Baydhabo jooga ka Goldogob jooga waxaan idin leeyahay aaminina maamulad goboleedyadani waa waxa Soomaaliya baabiinaya wallahi billahi tallahi waxyaabaha ay ugu kalifayna Soomaali weyn aamina waxa kamid ah maamul goboleedyada sababtan u aaminay mid garanaysa war Andalus meesha loo yaqaano ee maanta loo yaqaan Spain iyo Portugal waa dalal gaala waxay ahaan jiray dawlado islaam ba ahaan jiray waxa lagu sameeyay mid ogti waxa loo qaybay dhowr iyo 20 dawladood kadib dhowr iyo 20 dawladood markii loo qaybay la kala qaybsaday waa kiinkii lahaa هرة وحوري هرة انتفاخ الأسدي أو كصورة الأسدي مركو قبي إنك قبي يقلها أبوان بماجي ابن حازم لو رنشري عبد البر ما قراني لبضا مدبوها وحور هاي وبسدب وحور سيفاني مركا منك بقرطوين كي ملوك تشيغني مركا أندلس جوغ واسباني ما شاء الله يقاني منك بورتوغال ayaa wuxuu sheegay Real Madrid iyo wad ka sheeganaysa Granada iyo Cordoba magaalada Cordoba imka loo yaqaanay kubadda la liigaha ciyaarta la liigaha magaalada imka ciyaarta Cordoba loo yaqaano waxa ku yaala masaajid ay muslimiintu dhiseen oo 1200 oo tiir leh xadaaradeenna aaway dhulkeena meeyay oo la inaga qaaday
waxa la doonayaa maanta sidii Andalus Isbaaniya laynooga tirtiray oo laynoo ilowsiiyay oo cid sheeganaysa aan jirin maanta in dhulkeena laynooga qaado Itoobiya iyo Kenya kala qaybsadaan inaguna aynu noqono sida Falastiiniyiinta dad laajiina dad caalamka wareega anigu been ma idin sheegayo goor aan ku noqdo ama hadhowaato ama fogaato dalkayga aan ku noqonaya askari baan noqonaya siyaasi xataa ma doonayo siyaasiyiinta iyo dadka wanaagsan ammaankooda inaan sugaabaan doonaya muhiimadeedu waxa weeyaan sida ilmaha aan dhali doono iyo ilmaha oo sii dhali doono ayaan ka fakiray anigu maanta haddaan dawlad la'aan ku barbaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ka noolahay ilaahay xabadigu ma dilin laakiin waxaan ka fakarayaa inankaygu inaanu ku dhimanin rasaas inaanay hooyaday ama gabadha aan guursan doona aanay umul aror aanay u dhimanin iyo dhakhtar la'aan iyo dhiig la'aan aanay u dhiig bixin waxaan ka fakaraynaa sideen dalkeenu isugu taagi lahayn waar waxaan idinka codsanayaa qof kasta oo dalkii jooga in uu isqoro dawladda ama sakuurad ha noqdo oo ha ka caawiyo xagga amniga dawladda muqdisho joogta waa in dawladda sakuurad ka caawisa waa in dawladdu samaysataa lambar laga garaaco meel kasta oo laga dareemo inay argagixisadu wax ka wado waa inaad wici kartaa dawladda dadku waa inay u qaybsamaan mid sakuurada oo dalka dawladda ammaankiisa sugaya iyo mid maxaan dhahdaa askariya iyo mid shaqaale dawladeeda dhammaantiin dawladda mutadawacnimo weyn ugu shaqeynaayo bilaash dawladda war haddii dawladdaada sanad qura aad ugu shaqeyn kari weydo mutadawacnimo ma waxaad ku jiraysaa waaye ila abad forever ayaa waxaad ku jiraysaa maxaan idhaahdaaye inaan dawlad la'aan forever inagu ku jirna waxa inooga fiican inagoo maxaan idhaahdaaye dawladeena 1 sano ama 2 sano ama 3 sano hadda kii ay noqoto insha Allah taala aynu ugu shaqeyno mutadawacnimo iyo bilaash waxa la idinka doonayaa inaad dawladina bilaash ugu shaqeysaan inaan ka yaray al-shabaabka isagoo aaminsan fikir khaldan iyo fikrad khaldan ayaa macadaalka dana uu dhimanaya fikradiisa khaldan isagoo uu dhimanaya oo gaala dabada ka soo dirtay Daesh يا الشباب يا القاعدة كلهم صناعات أمريكية أداة لتخريب الدول الإسلامية والعالم العربي كله والله بين ما يدين شيء داعش يا محمد هذا القاعدة لما أنتوا دو حويا ودولته يا محمد هذا دنا قارو أديجية دنا هر قلبيتك ولدوني إن لجو خربه منطقة برية يا عالم كإسلامك سي أني نبض أني مرنا بوقت لنا وروحن دجالدا يا وحن ماشي كسر مشاريع بالقصة haddii dagaalkani uu dhamaado mashruuci baa dhamaanaya waxa dhamaanaysa galeydii Mareykanka laga keenayo qaramada midoobay lacagta ay bixinaysa galeydan leeno keenayo Mareykan baa laga keenay mid sanaaduq 10 sano xariisnad iyo maraakiib badda taagnaaba lagu soo xawilaya maxaa meesha ka soconaya dhaqaalihiisu doonayay inuu socodsiiyo waxaas oo dhan dad ka baxdo al-shabaabkii aaminsanaayo ilow iyo fikir khaldan iyo jihaadka qof islaam lagu ma jihaadadeer annaga diinta naqaana kala meesha ay diinta kaga taalo qof muslim la dilaya wallahi wa binti billahi wa binti tallahi wa binti nabi sallallahu alayhi wasallam iyadoo dagaal lagu jiro ayaa Usama bin Zayd nin gaal muslimiinta meel ugu gabanaya ayuu arko dadka leynaya dibadna Usama bin Zayd intuu u soo dhuuntay ayaa ninkii u seefta dul hariyay ninku gaal buu wuxuu dhahay la ilaaha illa allah uu dhahay Usama bin Zayd umuu dhageysanina qoorta ayuu ka jaray kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu sheegay wuxuu dhahay waan dilay nabi sallallahu alayhi wasallam intuu murugooday oo ilma isku soo taagtay ayaa wuxuu dhahay aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah marma waxa dishay markii uu dhahay la ilaha illa allah uu dhahay ayaa dishay kadib balu fiirsan nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo ugu dadaalayay qof bini aadana in maxaan idhaahdaa uu jannada galo warhankaaga iyo hamigaagu nabi sallallahu alayhi wasallam nin gaala oo muxaariba oo dagaal ku jira oo muslimiin qoorta ka guraya ayaa markii la dilay uu intu murugooday oo ilma isku soo taagtay uu dhahay aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah warma waxa dishay markii uu dhahay kadib la ilaha illa allah sideebad qiyaamaha ka yeelaysa nabi sallallahu alayhi wasallam Usama bin Zayd ku yiri marka la ilaha illa allah kula doodo iskaba dhaaf munaafiqiinta dawladda islaamka burburinaysa oo diminaysa oo raasul munaafiqiin Abdullah ibn Ubay ibn Salul uu yahay oo xaaskii nabiga ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha Aisha u been ka sheegay oo uu leeyahay weysiinaysatay oo saxaabadii u been ka sheegayo ayaa Umar ibn Khattab uu leeyahay aan dilay ya rasuulullah dacni adrib unuqa an qoorta ka gooyay rasuulullah dhaaf bas wuxuu ku leeyahay ya Umar kadaasaha sameeynina waxa la odhanaya nabi Maxamed asxaabtiisa ayuu dilaa baa la odhanaya bal fiirso war hadii dawladda xikmad dadka islaamka la isu ururin waayo oo xikmadii nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo raganimadiisi iyo shujaacnimadiisi dadka la isugu keenay waayo maskaxdiisi goormaynu si imanana war hanka in ka fakarina waxa weeyaan sideebay muslimiinta oo dhan aynu mideynaa iyo bariga dhexe sideebay ugu hortagnaa cadawgeena hadii aad maanta hoos ii soo celiso oo Soomaaliya maanta waa lagu guuleystay maanta dawlad goboleedyo la sameeyay qaar waxaan arkay galmudug ku dooday qaar waxaan arkay Hirshabelle ku dooday qaar waxaan arkay Jubbaland sheeganaya qaar waxaan arkay Puntland sheeganaya qaar waxaan arkay Somaliland sheeganaya waxaas oo dhan waxa loogu tala galay in lagu ilowsiyo magacii weenaay Maandeeq iyo Soomaaliya waxaan idin ka codsanayaa please and please dhagahay iyo maqlin maamul goboleed please and please
maamul goboleedyada dhammaantood ha la ilaawo xuduudda dhammaanteed ha la wada tuuro waxaa dhigay nin gumaystaa anigu xuduudda markay yidhahdaan dadkayga reer somaliland ama lay weydiiyo laygu dhaho maxaad u aaminsantay waxaan sheegaan runtan sheega waxaan dhahdaa anigu ma aaminsani xuduuddan yaa dhigay markii hore meel kasta dadka Soomaaliga waxay isku aqoonsan jireen luqad iyo guri meel kasta oo ka taagan yahay maxaan idhaahdaay dhig iyo udub ayaa la isku aqoonsan jiray maanta maxaa soo baxay maxaan idhaahdaay maamul goboleedyada xuduudu war waxa la isku keentaraya dadka imika naga dhintay maxaan idhaahdaay meesha magaceeda maxaa la idhaahdaa gaal kacayo yaa isku dilay soo nin gaale iyo maxaan idhaahdaay dastuur leeynoo soo sameeyay nin gaale leeynoo soo sameeyay dartiisa dadkeena isku mid dilin waxaas oo dhan ka baxa maamul goboleedyada ilaawa hankaagu ha noqdo Soomaali weyn hankaagu ha noqdo maandeeq waraaba maanta ku fadhiya waa la cunay raqdeedii laakiin maandeeq qashay dhashay nirigteedii inaan dib u soo nooleeyno aan dib u kicino weeyaan insha Allah ta'ala anigoo maanta halkan ka hadlayo runta sheegaya aniga awogay maanta waan idin sheegay waxa dilaysay Maxamed Abdullah Xasan iyo 14 kale dad kale oo iga dhintay oo ciida ka badan ayaa jira maxaan dhahdaay Soomaaliland iyo xilligii siyaad barra u duqeynay haddana maca dalil kulli waxaas oo dhan waxaan u ilaawayaa sidoo inankayga uu u helo dal nabada midnimo iyo xorriyad aniga maanta qurbaan imi waxa la haysta fluchtling waxa la haysta qof refugee baa la haysta waxa la haysta qof laaji'a si kasta u noqdo maanta aan xataa Jarman sharcigiisa haysto maca dalik haddana lastu almani ma ich bin kein deutscher haddana ma ihi haddana marnaba Jarmal ma ihi aan waxa weeyaan waxaan ahay mar walba qof ishfaarts yabaan qof madow baan ahay marka koowaad mar labaadkana Soomaali ayaan ahay waxa weeyaan inaan aamino dalkayga inaan ku dhaarto oo maxaan dhahdaa niyada galiyo weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaad leeyahay dhowr kun oo qof baa leeyahay dilay baad maanta leedahay waxaad ku doodaysaa 100 kun oo qof baa Soomaaliland laga dilay war nabiga sallallahu alayhi wasallam ma dheer baa dhakada laga saaray oo maxaan dhahdaa waa la caay oo inantiisa ilmaha laga soo riday inantiisa Zainab ayaa ilmaha laga soo riday markaas maca dalik waxaas oo dhan iyaga oo dhacday ayaa haddana maxaan idhaahdaay uu yimi magaalada Makka markaasuu qabsaday 12,000 oo ciidan ah oo faras walba uu saaran yahay inaan mujaahida oo diinta Ilaahay soo halgamay oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo tababaray oo kamid ardaydiisi ayaa faras walba saaran deedna Nabi sallallahu alayhi wasallam intuu kacbadii soo taagay oo yiri Quraysh soo ka yeedha ayuu yiri ma tarawna anni faa'ilun bikum war Quraysh maxaa u malaynaysan idinku sameyn karo markaas waxay yiraahdeen akhun kariim wa ibn akhin kariim waxa tahay inaan wanaagsan noo dhalay ayaatay Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhan wuu ilaaway saxaabadiisa ilaahay wuu ilaaway خبيب صحابي سيد خبيب يزيد دمانتود waxa lagu sameeyay maxaan dhahday gaalada reer Makka saas u jarjareen saas loo googooyay maca dalik saxaabooyin 70 oo biirul macuun ayaa lagu dilay maxaan dhahday Badr nabiga sallallahu alayhi wasallam dhooshiisa la jabiyay wixii oo dhan nabigu ilaaway wixii oo dhan wuxuu yiri idhabu fa antum mutlaqa iska baxa waxa aad tihiin xor ayaa tihiin maanta war waxa la doonayaa sidii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dadka rafiiqiisa jannada inaad noqoto waxa la doonayaa kow inaad dadka saamaxdo qisa ayaan idinka sheekeynaya hadda koor waxa jiri jiray waa qisadan ku soo koobaya weeyaan waan seexanay insha Allah ta'ala britole waa faqaytaagu waxbaan leeyahay laakiin insha Allah ta'ala waxaan ku soo laaban doonaa voqan indiga weekendiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa jirtay magaalada Dimashq ay qisadan ka dhacday waxa jirtay nin baa gabadh buu guursaday gabadhu xaamil ahayd uur bay hore u lahayd mu ogeyn gabadhan inay uur leedahay kadib ninkii waxa laaliyay wuxuu sameeyay buu garan waayay gabadhii uurkii ku qaatay sheekada yaan idin sheeka dhaafin in masaajidka meesha tujiya ayaa waxa dhacday uu riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam ku riyooday waa sheekh imaama waa nin daaciya sarsuuja baa la dhahdaa xaafadda Dimashq bay ku taala ninkii baa riyooday wuxuu ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii markuu nabiga ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay manaamkii u sheeg hebel waxaad ku tiraahdaa rafiiqayga jannada ayaa tahay ninka jaarka masaajidka ku soo tukada waxaad ku tiraahdaa rafiiqayga jannada ayaa tahay ninkii baa yaabay salaad subax markuu dadkii tujiyay ayuu raadiyay ninkii wuxuu yiri niyow arrin baan ku hayaa laakiin ilaamaada wallahi ii sheegto waxaad samaysay inaan ku sheeginin arrinka sheekadan waa qisad dhaba oo waxaan ka soo raraya qof xaqiiqi waa caalim weyn Maxamed bin Ratib an-Nabulsi ayaa qisadan ka sheekay aan ka soo raraya wuxuu waa ku qori kartaan YouTube Maxamed bin Ratib an-Nabulsi aan ka soo raraya wuxuu yiri ninkii waxa dhacday buu yiri wuxuu yiri ma ku sheegay buu uu diiday ma ku sheegay wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan ku riyooday fariin baan ka soo faray wuxuu fariintay sheeg wuxuu yiri wallahi ma ku sheegayo ilaamaad ii sheegto waxa aad samaysay wuxuu yiri okay waan ku sheegay maadaama aad dhaarisay wuxuu dhahay hadda koor waxa dhacday buu gabadh ayaan guursaday buu gabadhu wuxuu yiri uur ayay lahayd maanan ogeynay inay uur lahayd bishii afraad meelahaas ku jirtay markii aan guursaday oo aan meelaha 5 bilood meelahaas aan qabay ayay gabadhii u mushay buu kadib markii uu mushay intaan umulin waxaan sameeyaa baan garan waayay buu laba mid weeyaan buu inaan gabadha fadeexadeeyo aniga qaanuunku ila jira aniga sharcigu ila jira wax walba aniga ila jiraan iyo in aan ceebteeda asturo oo way toobad keentay imka wax walba ka toobad keentay way ooyeysa
inaan ceebtada asturo ilaahayna subxaanahu watacaala aan tala saarto iyo in qaanuunkiiba aniga ila jira diinta islaamka aniga ila jirta waa zaaniya waa in qoorta in la dilaa weeye waxaasoo dhan waan ilaawey buu yidhi maxaan dhahday waxaan dhahay waan ku saamaxay iska dhaaf kadib markay umushay ilmihii baan soo qaaday buu yidhi waxaan soo dhigay masaajidka iyadan cidi arkayn kadinkiisa salaadii baan iska galay buu yidhi salaadii markii aan tukaday ayaa dadkii ilmihii kusoo dul buuqeen waan isugu soo urureen waxaa dhacday waxaa la yidhi waa garac baa la yidhi markii dadkii isugu yimaadeen garacba ayaan soo dul tagay wuxuu yidhi anigaa qaadanaya ee iska dhaafa waxaan ku qaaday inuu ilmo aanan dhalay aanu ahayn saasaanu kaga badbaadiyay inuu dhiigayga soo galo iyo nasabkayga iyadiina saasaan ku badbaadiyey nabiguna sal allahu alay wasalam sidaasuu rafiiqiisa ayuu ku noqday waxaa lagaa doonayaa haddii aad doonayso nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam rafiiqiisa jannada inaad noqoto in aad dadka iska saamaxdo in qalbigaagu u noqdo fresh in aanad adduunyada yara kadsoomaysa aanad ku war waxa ugu badan noolaan kartaa maanta dad 20 jirta waa 40 sano dambe waxaa la doonaya inaad dadka iska saamaxdo in anigu laftarkayga waan aaminsanay in shuruud lagu yara xiro Soomaaliya oo bariga hore way jirtay dadka waxa jira dad la yara laayay dadka in magdhow la siiyo dadkii wax laga laayay masaakiinta ah reer agooma baa jira dad yaani waxa lagu radeeyay ku dhaceen baa jira waxaas wala isaga imanaya dad muslimiina baynahay waynu heshiinina waa in taayfatan min almu'miniina qatalu fa aslihu baynahum dad walaala baynahay si islaamnimada kitaabkeena sharciga ayaan ku wada qanacsanay kaasaynu ku dhamaysanaa insha Allah ta'ala waxaan idinka dalbanaya hal dalbi quraan leh waana ka baxaya waxaan idinka doonayaa dhamaantiin inaad gaarsiisaan dadka kale oo aa u sheegtaan qof kasta Soomaaliya dawladda inuu ku taageero maanta dhalatay wuxuu ku taageeri karo lacag adduun gacan inuu sirdoon noqdo wax kasta inuu noqdo inuu askari noqdo dhamaantiin saasaan idinka rajeenayaa 4 sano dambe wallahi farmaajo kaliya wax ma qaban karo wallahi been ma idin sheegayo wallahi inaan farmaajo kaliya wax qaban karin farmaajo ha ka sugin inuu buurahana dahab ka dhigo ha ka sugin badda inuu macaan ka dhigo isku day adigu in dalka la bedesho aad wartoki asahiro ninkii ilaahay la oran jiray ragii bedelay oo kamid ahaa Japan dhalinyara bedeshay insha Allah ta'ala waxa soo dhan ka sheekeyn doona buug ayaan soo wadaa magaciisa la yiraahdo hilinada guusha waana soo bixi doona waana soo daabacaya oo buugan ku soo farayareystay sida loo guuleystay ayuu ka sheekeynaya oo in soo gaari doona insha Allah ta'ala waan arki doontaan qisaska si qaabka loo guuleysto iyo dhalinyaro uga qayb qaatay guulaha nolosha سان دمانتي كذا شيكينيا أردوغان بان كذا شيكينيا مهاتير محمد بان كذا شيكينيا عمر مختار بان كذا شيكينيا عادل فيتلر بان كذا شيكينيا دمانتو تبوغا بان كذا شيكينيا وانا ولا كان بيتو كنا القسوي الله انت ما انت فراق لي والله وان قرابوغا ان شاء الله تعالى ودي سو غاري هلينada guusha yara dhaha iyo baraha haliyada buuga soo bixi doona waxaan kaga tagay dhamaantiin maanta waa maalin weyne maanta madaxweynaheena maanta magacii haraage maanta saddexdii maqnaana maanta waa NFD meesha ula bixinay gaalada iyo Soomaali galbeed iyo Itoobiya saddexdii maqnaa maanta saddexdii maqnaana maanta calanka u muuqday maanta dhamaantiin waxaan doonayaa insha Allah ta'ala ina gaarsiin dad kale wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh